waxaa la yiri qofkii xifdiyo ee kooba jannada ayuu galayaa. waxaa kamid ah ism hadaad barato kuna duceysato wax waliba oo dhan lagu fududeynayo. ku soo dhawaada fiidow cusub. Ramadan wanaagsan, Ramadan wanaagsan, Ramadan السلام عليكم أصحاب تقاليقة رمضان مبارك دمانتين وإني سو دوينيا هدي جنال كسو قارو سبسكرايب صار لايك صار أصحاب تادنا لسي وذاك وحان كهالينا وحيرو كسابسان مقعيدة إلهي ويفر بديهين آذن بديهين لكن سقاشن سقال مقع أيها الحساء أو إتبادن اسكو حيران وسقاشن سقال مقع هذا سقاشن سقال كاس مقع waxaa la yiri qofkii barta xifdiyo ee kooba jannada uu galaya. marka xifdintii iyo koobintii ayaa waxaan rabnaa inaan hoosii taxliilino. xifdintu waxa weeye horta laftiin inaad aad xifdiso macnaheedna waa sidoo kale in ayadana aad xifdiso. marka muhiimadu waxa weeye maadaama ay yihiin asmaa aad u qaaliya oo qof walbo xifdiya ama akhriya oo ka helayo ajir iyo faa'iido aad u fara badan. ducooyinkaadana laga yaabo in si fiican loogu aqbalaba. waxaa muhiim haddana inaan macnihii aan wax ka fahmino. ism walba wuxuu u taagan yahay macno gaar ah. isku macno maahan. ism walba wuxuu u taagan yahay macno gaar ah. ism walbana xaajadaada ayaa si gaar ugu bari kartaa Ilaahay maadaama ay kala duwan yihiin waxyaabaha ism walba u taagan yahay. haddana mid walba adiga xaajadaada ku haysato ku bari Ilaahay. haddaba ismaada waxaan galaynaa macnahooda. waxaa ugu horeeya الرحمن waxaad akhri kartaa asmaada yaa raxmaan waad akhri kartaa ya waad ku akhri kartaa yaa raxmaan yaa raxiim yaa malik yaa quduus yaa salaam waad dhigi kartaa. asana waad akhri kartaa الرحمن الرحيم الملك القدوس labada waad akhri kartaa. aday tii ku fudud akhri kartaa labadooda. haddaad mar xifdiso way ku fududaan labadan buu akhrisid. ismka ugu horeeyo ku bilaabayna yaa raxmaan weeye. ilaahay raxmaan weeye. macnaha erayga marka raxmaan ismka magaciisa ismka macnihiisa raxmaan waxa weeye waa ilaaha u naxariista koomka oo dhan ilaaha u naxariista muslim iyo gaal dhammaan u naxariista. الرحيم waxa weeye naxariis qaas ilaaha naxariista si qaas u naxariista dadka muuminiinta maalinta qiyaama iyo qabri u naxariista. gaalada iyo munaafiqiinta iyo kuwa kale naxariis qaas heli maayaan. الملك إلهي بقرك ملك إله بقرة إذ كلا بقرتني من مله وحن لو شيء بقر هبل بقر سان وشيء اللي واحد بقرتني من إلهي يسقناتي ملك إلهي أسكال كون كان إلهي وأسكال الدمان مركو دونو دوبانيا مركو دونو كالنيا مركو روبر واقسينيا سجايا أسكال القدوس إلهي ظاهرنا حمان ودن wax walba xun oo dhan Ilaahay waa ka dahiray. Ilaahay waa ka nastaay xumaan. makhluuqaadka ayaa xumaan ku dhacay Ilaahay subhanahu wa ta'ala xumaan asagu malahan. assalaamu Ilaahi nabadgeliyada ahaa. Ilaahay subhanahu wa ta'ala waa nabadgeliyo. Ilaahay subhanahu wa ta'ala waa nabadgeliyada uu jecel yahay kuwa nabadgeliyada ka shaqeeyana uu jecel yahay. المؤمن إلهي كدبيها كرميها wax alle wixii Ilaahay uu doono yiraahdo waxaas waan sameeynaa hadii uu qoon halaagayo iyo hadii la haloorinayaba Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka dhabeeyo way wuxuu sheegay Ilaahay ka dhabeeyo way. المهيمن eegaha ama kormeeraha ama ilaaliyaha Ilaahay subhanahu wa ta'ala ku ilaalinaya. المؤمن المهيمن العزيز Ilaahay subhanahu wa ta'ala عزيز sharaf badane كونك wax adduunka waxa joogo Ilaahay baa ka sharaf badan. hebla sharaf ku leeyahay sharaftiisu waxay qofka dadka ugu sharafta badan waa qofka ugu cabsida badan Ilaahay ugu dhow. sharaftaasna waa cabsida Ilaahay waa taas aaba sharaf u haysa. qofka Ilaahay ka cabsan sharaf ma wala hamba. qofka koonka ugu sharafta badan waa qofka Ilaahay dadka ugu dhow. adduunka iyo waxaan markii soo keeno dhan sakada sharaf badan. الجبار فليه
ilaahay ayaa fuliye ah isaga ayaa fuliye amarada wax ka hor imaan kara hawl wato ma jirto fuliye marka adigu waxa ilaahay waa ku baryaysaa leed ilaahay adiga fuliye iyo fuliye hawshaas ilaahay adiga fuliye markuu barado ila awoodaan xiriirista kar wax fuliye الجبار المتكبر إلهي متكبرنا إلهي سبحانه أود يصرخين إنه مخلوقات كوين هاي مخلوقات سلوى كوين وحيرادو تلعيف إلهي لكن مخلوقات كيس أو كوين العزيز المتكبر الخالق لا خالق أبو خلق أوردن وحكستو خلق يا الله أبو markabka arkay meelaha socda diyaaradaha yaa ka dambeeya warta qofka iyaga sameeyay isku soo xirabay asaga ilaahay baa abuur qofka ilaahay abuuro maxaa siga kale hay ala qaaliqu al bariu ada bilaaba ilaahay waa bilaabe waa barbaariye al musawwir ilaahay wax suuradeeya qof deehaaleed hadii geed haaleed hadii wax kala haaleed ilaahay baa suuradeeya الغفار أسترها ضعفها ما أنت عدد عيبه وحي وضعان إلهي سبحانه وتعالى وهو أستريا إن السحنات سميسو أدي أو إلهي أبجيهي لكن بني آدمك قف قددك وحي يرى عيبوين وقاعد مركو أقادو بناكو كينيا مدك الإلهي وح أستره عيبتا إلهي وبري غفار سيب مركز عيبتا أستر كره هذا حتى برادك يجين الله سبحانه وتعالى سيسترك قهار الله سبحانه وتعالى قهار رقية وخصبة عدو دوره وحود دوره وخصبة يعني وحود دوره الله سبحانه وتعالى وحود دوره وخصبة يعني محاب بحية وح بحية الدنيا واحد شو ما أولاد هذين أما هاتيا هذين ما برواق هذين وحول بلاها بحية واحد بلادك هاي واحد سكيرو خور نعاد إله باش الرزاق إله سبحانه وتعالى رزق الإلهي قال رزق الإله بخاي عدو دونه الرزاقية عدو دونه وديدية إلهي سبحانه وتعالى تذكيس سيار الرزاقة وش إلهي كو قرأ ثلاثة سنت ير إلهي هل سنت إلهي كو إرساقي إرساقا إلهي كو قرأ إيدو كامور استعي كرتو إيدو روح أنت ذات كو مدري كرتو يرساق فتاح الفتاح إلهي فرحة الباب دحير مركي وحرمان وأرو مركي اسكو حيرانتو يا فرفر إلهي ما فرفر أرو مركي اسكو حيرانتو فتاح هدي حاج حيرانتو إلهي ما فتاح أو فركر عيد كلو فركر تعمله العليم اوغي وحول بإله با اوغ إنه waxaan ognahay kaliya wixii agaarkeena oo waxa xog fiican kana ka hay laakiin Ilaahay subhanahu wa ta'ala iska dhaaf wax walba adiga qurubtaada halkaan wixii kaaga jira Ilaahay subhanahu wa ta'ala waa alim markaas alim baa ku soo gooyaya waa soo ugadayna casharada waxaynu ahaan doonaa insha Allah رمضان lagu jira ducooyin kale iyo asmaada oo qaabka naftirka idin lagu si kala duceysto insha Allah waxaan ku rajeynayaa inaad wax badan ka faa'iidid waa muhiim asmaadu waa muhiim ism waxa lagu dhex qariyay qof waliba oo ismkaas bartaaho ducadiisu ay noqonayso laga aqbalayo wax walba uu rabo oo macsi ahayn Ilaahay u fududeynayo وسببت له الحقرية محوي وقف ولا بهدي اسم كاس وقال لها لو شيء لها ما دام هو هي اسم فرقه أو وحي وقف قد عيستا وحي خرقك هلاي تذكر ما بس بيان وقف الباو اسم مسكبر لها لكن سببت حلو الله سمينيا خوف إنه دلال أو اتهام أو مرة أو أرنت أو علايس يكون قطه أو أسماء يقولون أو حفظيه أو سداس لأجل جد أو اسمك وحلاله qofkii dadaala oo kaliya waa haleelaya iyo qofka Ilaahay uu haleeliyo marka waxaan dhammaantiin waxaan idin rajeynayaa idinku inaad xifdi doontiin macniyan iyo lafdiyan intaba inaad xifdi doontiin insha Allah qaybaha soo socdana isla wasi wadi doonaa
insha Allah dhammaantiin waad mahadsantihiin. waxaan leeyahay haddii channelku soo gaaro subscribe saar, like saar, asxaabtaadana la sii wadaag. Ramadaan mubaarak.